waxaa lagu ganaaxi doonaa $500 maalin walbo ama 10,000 ama 2 sano xabsi ah haddaad faalgareyn wayso waxa loo yaqaano Corporate Transparency Act. maanta waxaan ku sharaxi doonaa muxuu yahay waxa loo yaqaano Corporate Transparency Act iyo dhibaato u geysan doona iyo halka ka faalgareyn lahayd. walaal soo dhaw magacayga waxaa la yiraahdaa Daahir halkan waxaan kaga hadlaynaa real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage maanta aan ka hadlayno taxi loopholes iyo waxyaalaha loo yaqaano taxi ku saabsan canshuurada oo dhibaatada dadka u geysanaya ayaan ka hadalnaa insha Allah soo dhaw haddii nagu cusub tahay soo follow garee YouTube video-ga hadduu ka bato 2 daqiiqo waxaan soo dhigaa YouTube-kayga halka ayaa ka daawan kartaa waan ku bilaabayaa marka koowaad waa maxay Corporate Transparency Act waxa loogu talagalay in lagu la dagaalamo wax loo yaqaan tax fraud dadka taxiga canshuurta inay bixiyaan diidiga ama wax staffska sameeyo ama wax loo yaqaan money laundering oo ah dadka lacagta bangiga ka qaada bangiga kale ku shubaya ama meel kale u dirayo lacag staffsiga ama wax loo yaqaan dadka in la soo ciribtiro wax loo yaqaan financing for terrorism oo dadka in la soo ciribtiro dadkan argagixisada dhaqaalaha siinay in la soo ciribtiro so haddaan ka hadalno hadda yaa uu dhibaato ku yeelan doona arrintan ku yeelan doona qof walbo business leh ayuu dhibaato ku yeelan doonaa hadda leedahay any entity ka magacaawi doono waxyaalaha ku sheegi doono oo hadda leedahay businesskaada uu kamid yahay loo yaqaan partnership oo qof kale business isla leeyihiin ama wax loo yaqaan LLC leedahay sana imsanahay qof walbo oo ganacsi furtay ama dukaan yar daayiman leedahay LLC waa leedahay waa u baahan tahay adina waa ku jirtaa dad wax loo yaqaan escoba jira dadka sameeyo over 50,000 ka sameeyo badana escoba sameystaan waa iyo cooperation hadda waxyaalaha ka soo hadalnay kulli hadda kamid tahay waa laga rabaa ina faal gareyso arintani of business ku leeyihiin labadiina isku leeyihiin labadiina like let's say 25% qof ku leeyahay 75% adaas kale business inta kale hadda 100% leedahay still ina faal gareyso waaye si aad u soo cadeyso ina businesska adiga wada leedahay oo kale so taasi waa inaad soo cadeysaa halka u direysaa waxa loo yaqaan Financial Crimes Enforcement Network oo markii la soo gaabiyo FINCEN loo yaqaano ayaa u direysaa so gorma la diriyaa waa su'aasha kale waxa la diriyaa January 1st 2024 ayuu bilaaban doonaa website waxa aad kartaa www.fincen.gov/boi website-ka ayaa aad kartaa ilaa waxaa laga baahan yahay in aad report gareyso wax loo yaqaan beneficial ownership information oo POI ah baa laga baahan yahay taasoo ina soo cadeyso qofka businesska kula leh hadda adi business kaliga aan lahayn oo kula hadda adi kaliga leedahay magacaada kaliya ku qoraysaa hadduu qof kale kula leeyahay percentage-ku ku leeyahay qofkaasi ina soo cadeyso waaye taasoo ku dareyso qofka magaciisi addresskiisi dhalashadiisi license-kiisi ama passport mid uu leeyahay intaba ina u raacaysaa la doonayaa so taa hadda samayso hadda rabto saa garanay in laga caawiyo arrintan by 2024 dadka tax return ka xaray ayaa ka caawin karo xagaas ayaa aadi kartaa aniga ninka rabaan ka caawin karaa insha Allah hadii la yiraahdo hadda rabto inaad guri iibsato waxaad iga soo qaban kartaa website-kayga Sahan Realty hadda rabto real estate investment ina barato like fix and flip Airbnb arbitrage hawlahaasi waxaad iga soo qaban kartaa website-kayga Sahan Investor wa islaamin badan assalamu alaykum